Dhuusamareeb waxay ku leeyihiin waa magaalo multicultural ah waa magaalo Soomaaliya min soo xukum gudoomiyaasha gobolka markaa fiirisid dadka hadda deegaanka madaxda ka ah dad ka duwan soo bixi jiray oo deegaano kala duwan oo Soomaali ah oo fog ayaa madax halkan ka jira marka waxa cadeynaysa in ay ahayd magaalo la wada degan yahay Soomaaliya dhan wada degan yahay marka laga hadlayo Dhuusamareeb waxyaabo dadku ay aad ku soo xasuustaan ama la isku qabto ama loo kala aragti duwan wax kamid ah magaca magaalada meesha Kenya buugaag muxuu ka leeyahay General Morgan magaalada horumar badan uu sameeyay waxa uu sameeyay garoonkan cusub hadda intaan garoon hore jiri jiray waxa garoonkan asaas sameeyay sidoo kale wax badan wuxuu ka qabtay master plan-ka magaalada oo ah jidad loo fad qofka aan Dhuusamareeb weligiis imaanin ee rabo inuu ogaado buugan uu sagaarin sidee uu qeexday Dhuusamareeb inuu wax qoraalkaygu qaan gaaro waxay ahayd 2017kii waxaan soo saaray laba buug oo la yiraahdo Islaamka iyo Dunida labadaas buug waxaan uga qayb galay bandhigii buugaagta ee Muqdisho sidoo kale sanadkii ku xigay waxaan soo saaray laba kale buug oo la yiraahdo mid Guriceel Jannad magaalada aan ka imid iyo buug la yiraahdo Federal Sunnoqoy aan islaayahay buug ugu caansan buugaagtida aan qoray maxaa ku qoran waxa ka soo jeeda magaaladan madaxweyne Cabdiqaasim wuxuu ahaa madaxweynihii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya ee carta lagu soo dhiso sidoo kale aabihii wuxuu ahaa nin caana oo Salaad Booy la yiraahdo oo Talyaaniga la shaqeysan jiray ayuu ahaa deegaanadan oo dhan caanka ka ah marka waxaan dhihi karnaa waa jacayl ka soo bilowday yaraan assalaamu calaykum baawadayaal waxaan naga daawanaysaan shaashada TV-ga dawladda Galmudug waana maalin kale oo aan ku sugannahay gudaha caasimadda dawladda Galmudug ee Dhuusamareeb galabta fadhigan ama wareysigan kooban waxa noogu marti ah oo aynu halkan ku wareysan doonaa isla markaana xog badan aynu ka heli doonaa mid ka mid ah aqoonyahanada daayirka ah ee Soomaaliyeed sidoo kale ka mid ah bahda qalinleyda haddana gacanta ku haya oo dhawaan soo bandhigi doona buug laga qoray taariikhda magaalada caasimadda dawladda Galmudug ee Dhuusamareeb oo lagu magacaabo waayihii Dhuusamareeb kaas oo dhawaan halkan lagu soo bandhigay marka waxaan soo dhaweynayaa qoraaga buugga balse dadka isku bara soo dhaw waa maasan tahay Cabdisalaam wadawahay waan ku faraxsanahay telefishinka Galmudug runtii ma soo farsamay Sabriye waxaan ku dhashay magaalada Guriceel beertii biyo badan waa 1997 waxbarashada halkaas ayaan ku soo qaatay kadibna jaamacadda iyo daraasaadka sare jaamacadda Muqdisho ayaan masterkayga ka qaatay diblomaasiyadda ayaan bartay waxaan ahay qoraa buugaagta qora sidoo kale waxaan ahay falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo mintaqada Geeska Afrika ilaa afkan ayaa ku noqonaya buuggii shanaad marka taariikhdayda waa intaas waa tahay bal taariikhdaaba hadda wax ka warbixis taariikhda nololeed taada qoraannimo waxay ka soo bilaabatay su'aal wanaagsan waaye runtii waxay dib ugu laabanaysaa qiyaastii 2011kii aniga waxaan inta badan jeclaa waxa la yiraahdo daabuurka ayaan waxa soo jeedi jiray taariikhda islaamka marka taariikhda islaamka marka soo jeedi jiray waxaan aad u xiiseey jiray dawladihii islaamka Cabbaasiyiinta iyo Cusmaaniyiinta iyo taariikhaas marka waxa igu dhashay inaan buugaagta waaweynta oo lacagaha lagu qoro inaan taariikhda islaamka ku qoro qof warbaahinta ku xiranna waa ahaa xiliyadaas waxaan dhageysan jiray idaacadda Radio Hargeysa barnaamijyada ugu badan idaacadaas waxay ahaayeen arrimaha bulshada marka muhiim ay ahaayeen taariikhdaas marka xilligaas ayaan bilaabay inaan wax qoro waxyaabaha aan wax ku bilaabay waxay ahayd caasimadaha duniyada inaan qoro tusaale ahaan caasimadda Kenya Nairobi Kampala Uganda Doha Qatar yani si kooban oo la jaanqaad ah ayaan ku bilaabay sidoo kale xilligaas waxa ay caawinayay buugaag yar oo waxa jiray oo Cabdiwaxid Bookshop xamar la Guriceel laga keeni jiray kaamid lagu keeni jiray oo runtii aad interest u ahaayo waxaan ka xasuustaa buug oo nin la yiraahdo markii dambe gudoomiyaha akademiyadda Muqdisho isku arki jirno tababaranaysi jiray marka ninkaas wuxuu qoray buug oo leeyahay horta bara dalkaaga oo taariikhda Soomaaliya gobolada iyo degmooyinka xilligaas ayaan wax qorid bilaabo waa 2011 laakiin inuu wax qoraalkaygu qaan gaaro waxay ahayd 2017kii waxaan soo saaray laba buug oo la yiraahdo Islaamka iyo Dunida labadaas buug waxaan uga qayb galay bandhigii buugaagta ee Muqdisho sidoo kale sanadkii ku xigay waxaan soo saaray laba kale buug oo la yiraahdo mid Guriceel Jannad magaalada aan ka imid iyo buug la yiraahdo Federal Sunnoqoy aan islaayahay buug ugu caansan buugaagtida aan qoray runtii buugaagtaas ugu caansan hadda tusaale buug Federal Sunnoqoy oo kala waxa uu gaaray ilaa 3 madaxweyne ayaan u geeyay sidoo kale istiidiyada qaarkood Galmudug iyo waxaan u geeyay Jubbaland marka buug siyaasiyiin badan oo u geeyay marka buugaagtaas oo waxaas marka waxaan dhihi karnaa waa jacayl ka soo bilowday yaraantii intaas aan u gudbaynaa hadda waxaa maalmaha gacanta ku hayso aragtayna soo bandhigto buug ka qortay taariikhda magaalada caasimadda Galmudug Dhuusamareeb oo ugu magac dartay waayihii Dhuusamareeb balse kooban buuggaas
muxuu ka hadlay runtii buugga waayaha dhuusamareeb wuxuu ka mid ahaa buugaagta aan markasta maskaxdeeda ku jirto inta badan deegaanada taariikhda soomaalida ma qorno marka buug horay gurceel aan uga qoray iyo isaga isku waqti ah isku fikirka markii la bilaabay laakiin maadaama aniga beeskeyga muqdisho ahaa waa adkeyd inaan deegaanka kusoo laabto buuggaasi aragtidiisu waxay soo bilaabantay 2020kii ayaan mar halkan imaaday xilligaasi muuqaallo taariikhda magaalada ku saabsan ayaan bilaabay inaan sameeyo sidoo kale dad waa yeela inaan taariikhdii aruuriyo laakiin xooggeeda shaqada 2 sano ugu dambeeyay ayaan sameeyey maadaama deegaanka laga aasaasay wax la yiraahdo galmudug buugfaar runtii galmudug buugfaar wuxuu igu dhaliyay rajo ah qorniyo taariikhda magaalada dhuusamareeb inaana la dayaci karin oo la qoro maxaa yeelay taariikhdeenu waa jiilka dambe mustaqbalka ayay aayada marka buuggan aragtidiisu 5 sano ka hor ayay soo bilaabantay laakiin 2 sano ugu dambeeyay ayaa shaqada u culus la sameeyay inta badan markii taariikhda magaalooyinka aan qornayn la sameeyay runtii caqabado waaweyn kala kulmaysa waxaa jira wax la yiraahdo research-kana waa lagu qaataa wax la yiraahdo primary data iyo secondary data primary data waa datada aas-aaska ah oo magaalada laga qoro aad u yareed waxa la dhiilgareynaysid ama la hadlaysid waa dad waayeel ah oo taariikha kala duwan kaaga sheegay qaarkood xusuustooda ma wanaagsano qaarkood academic ma ahaan oo inta badan dad wax soo barto jaamacado ma aha jira marka qof kastaba wixii uu xusuus haya in baa ka qaadanaysa bal marka buugga taas waa waqtiga uu qaatay qoristiisa iyo fikradiisa ku timid maxaa ku qoran runtii buuggani waxa uu ka kooban yahay 3 picture oo kala duwan inta badan magaalooyinka Soomaalida markii laga hadlayo 3 baan anigu u qaadaa inay xadaaradooda ama ilbaxnimadooda ka dhalatay magaalooyin waxay ka dhashaan xeebaha sida Muqdisho Baraawe magaalooyin jinka webiga ama Jubba ama Shabeelle ay ka dhan sida Afgooye Jowhar sidoo kale waxaa jira magaalooyin xadaaradoodu ay ka dhalato ceelasha dhuusamareeb iyo magaalooyin Central Soomaaliya ku yaalo dhan waxay ka mid ahayd magaalooyinka xadaaradoodu ay ka dhalatay ceelasha marka dhuusamareeb hadda sawirkan 1950kii waaye marka wuxuu cadeynayaa wuxuu tusayaa dad geel iyo ariga yani xoolo waraabsanaya marka taariikhda dhuusamareeb xadaaradeedu waxay ka dhalatay ceelashi magaalooyinka waxay ka mid noqonaysaa ceelash ka bilowday ayadeen يعني xilliga la deegaameeyay inkastoo isku khilaafiyaan record sax aysan jirin laakiin waa dhamaadkii qarnigii 19aad waa 1890 waa xilligii yani inta badan xilligaas waqooyiga Soomaaliya waa xilligii yani ay bilaabatay xornimadii waqooyigaas oo yani salda yani sayidka iyo daraawiishta isku dirayeen xilligaas ayaa deegaanadan aas-aaskooda bilowday laakiin markastaba dad waa deganaayeen laakiin markii laga hadlayo markii ugu horeeyo dadku degaan xilligaas ayaa record garaysan waxay ahayd runtii xilliyadii horena deegaanadan waxaa looga tiri jiray magaalo la yiraahdo Ceelbuur oo qadiimi ah oo bariga gobolka Galgaduud dhacda marka dhuusamareeb taariikhdeedu waa qiyaastii 130 sano inta hadda record garaysan magaaladaas ka soo bilaabatay ceelash ka soo bilaabatay haddana meesha 2026 la gel rabo 2025 dhamaadkii la marayo joog marxaladii kala duwanaa ee soo martay balka hor runtii marxalada kala duwan magaalo kaste markii la hadlayo waxaa jira marxalado ay soo martay waqtiyo hore waqtiyo dhexe iyo waqtiyo dambe dhuusamareeb waqtiyadii hore waxay iska ahayd magaalo yar oo tuulo ah oo ceelasha iyo deegaanadaas xilliyada dhexe oo talyaanigu uu yimid talyaanigu waxa laga qiyaasaa inuu magaaladan yimid 1925 waxayna ka mid ahayd beesas talyaanigu military uu ka samaystay 4 magaalo ilaa 5 magaalo bartamaha Soomaaliya iyadoo Gaalkacyo iyo Matabaan wuxuu rabay inuu qabsado boqortooyadii Baargaal iyo boqortooyadii Hobyo marka wuxuu sameeyay bases military oo dhuusamareeb ay ka mid ah oo uu ka duulo marka dhuusamareeb waxay ka mid ahayd baseska military ee Talyaaniga sidoo kale magaaladan laba kaclinteedii labaad aniga waxaan isleeyahay xilligii maamulka Afis ama maamulka Talyaaniga Afis waxa la yiraahdaa Administrazione Fiduciaria Italo Somala waa maamulkii dakhliga Soomaaliya markii Talyaanigu ku soo laabtay 1950kii magaalada dhuusamareeb horumar badan ka dhacay xilliyadaasi waxaa la dhisay daardheer waxaa la dhisay xeradii boostada isgaarsiinta xaruntii boostada sidoo kale waxaa la dhisay iskoolka dhuusamareeb oo dadku shimbiraale iyo magacyo kala duwan u yaqaanaan 54 marka xilligaasay magaaladu xadaaradoodii bilaabatay iyo saldhigga booliiska marka xilliyadii dhexana waxay ahayd xilligii dowladdii kacaanka magaaladan markaad fiirisid dadka hore taariikhda akhrinaya la fiirisid dhuusamareeb waxay ku leeyihiin waa magaalo multicultural waa magaalo Soomaaliya oo dhan soo xukunta gudoomiyaasha gobolka markaad fiirisid
dadka hadda deegaanka madaxda ka ah dad ka duwanaa soo bixi jiray oo deegaano kala duwan oo Soomaali ah oo fogfog ayaa madax halkan ka ah jira marka waxa cadeynaysa in ay ahayd magaalo la wada degan yahay Soomaaliya dhan wada degan yahay sidoo kale xilliyadii kacaanka magaaladan waxaa ku yaalay waxay ahayd magaalada saddexaad ee ugu xarumaha badan Soomaaliya markii laga tago Muqdisho iyo Hargeysa marka laga hadlayo xamaad xarumaha dowladda marka waxay halkaas cadeynaysaa inay ahayd magaalo weyn oo Soomaaliya dhan sidoo kale magaalada waxyaabo cajiibka magaalooyinka lagu qiimeeyo wax kamid ah magaaladan waxay leedahay tiyaatar oo ilaa hadda internetka laga heli karo riwaayadihii kala duwanaa ilaa 10 riwaayad waxaan arkay program Cawska Washington ra'iisul wasaarihii hore dowladda Puntland soo noqday Cabdulle Cali Gaas oo ka hadlaya riwaayado uu ka qayb galay maalin hore booqday xaafadiisii tiyaatarka iska soo horjeeda marka wuxuu leeyahay riwaayado badan oo hoboladii waa bari markii riwaayad Muqdisho lagu dhigay gobolada ayaa loo qaadi jiray marka riwaayado badan halkan lagu sameeyay marka usaraad nidaamaya Dhuusmareeb lagu dhigo oo internetka ku jirto heeso badan oo caan ah halkaana lagu qaaday marka runtii waxay cadeynaysaa inay ahayd magaalo xadaarad leh xilli hore usaraad sheegtay waxa la digay xilli hore magaalada xilligaas hore la digay iyo maanta isbardhiga da'da ay jirto ma qalantaasi iyo sida ay tahay runtii markii la fiiriyo magaaladan uma qalanto aan dhihi karnaa sababtoo ah waxa waaye magaaladu markii qarni iyo xaga dhaafto inkastoo magaalada la daruuf tahay deegaanada Soomaalida oo inta badan Dhuusmareeb waxa la sheegaa xilliga burburku dhacay wixii ka dambeeyay galmudugtan cusub inaysan magaaladan sanayd laakiin cimrigeeda markii loo fiiriyo iyo hadda waxaan isleeyahay gaab jira laakiin inkastoo hadda magaalo soo kabanaysa ay tahay laakiin waxaan rajeynayaa in horumarka maanta jiro horumarka ballaaran laga marka laga hadlayo Dhuusmareeb waxyaabo dadku ay aad ku soo xasuustaan ama la isku qabto ama loo kala arduway wax kamid ah magaca magaalada meeshu keenay buugaag muxuu ka leeyahay runtii magaca Dhuusmareeb waa lagu ra'yi duwan yahay marka ra'yiga aruurinaysana aniga waxaan jeclahay in wax dhan la wada aruuriyo la wada jumleeyo tusaale ahaan qaarkood baa ku dhaxaya magacu wuxuu ahaa Dhuusmareeb oo ah meel xanan ah oo ay dadku markii gaariga marayaan ay ka qaadaan dadku waxay ku lahaayeen waa Dhuusmareeb oo يعني عيلة جرو dadku biyaha markay cabaan sidoo kale dad qaarkood baa ku dhaxaya magaca Dhuusmareeb wuxuu ka yimid dhawaaqa maroodiga oo dhulkani maadaama ceelal badan lahaa waqtina waxa cabi jiray maroodiga waqtina waxa cabi jiray dadka marka xilliyadaas magacyadaas ayaa la sheegaa sidoo kale magac kala jiro oo la yiraahdo daar dheer oo magac qadiimi ah oo xarun weyn oo Talyaanigu halkaas ku lahaa loogu magac daray sidoo kale magac waxa jira isagana xilliyada dambe madaxweyne Farmaajo uu u baxshay oo ah Samareeb sidoo kale waxa jira magac kale oo leeyahay Diamond City oo magaaladan waa magaalooyinka Soomaaliya bartamaha Soomaaliya ee ku caanka uraniumka ama macdanta uraniumka magacyo kalena waa jiraan oo waxa la isku dayactaa mararka qaar xilliyadii kacaanka dhamaadkiisii magaca laga bedel magaalada Dhuusmareeb laakiin suurtagali marka laakiin magaca ugu saxsan aan leeyahay dadku ugu badan isku raaceen inay tahay Dhuusmareeb meeshii xananta ahayd ee laga budbay oo dhismada leh waa tahay xadaaradaha ama marxaladaha ay soo martay Dhuusmareeb wax kamid ah kow dowladda kacaanka saameynta kacaanka ee Dhuusmareeb iyo waxay u ka qabtay barbo runtii kacaanka waxaan isdhihi karnaa wuxuu ifafaalo u ahaa Dhuusmareebta la yaqaano Dhuusmareeb waxa ku yaala dugsiga sare Galguduud oo laga soo aadi jiray soo santra dhul ballaaran laga soo bilaabo Boosaaso ilaa magaalada Buulabert marka iskool wuxuu ahaa dugsi sare oo aad loo qalabeeyay oo dad caan ah oo Soomaaliya magac kale ku soo sidoo kale magaaladan xilli waxyaabo kacaanku ka qabtay waxa kamid ah marka taariikhda baare aan ogaaday in General Morgan magaaladan horumar badan uu sameeyay waxa uu sameeyay garoonkan cusub hadda intaan garoon hore jiri jiray waxa garoonkan asaas sameeyay sidoo kale wax badan wuxuu ka qabtay master plan-ka magaalada oo ah jidad in loo faro wadadan hadda kadiyo oo PCQ marta oo magaalada ka baxda sidoo kale wadadan gado yani ceelbuur aad isaga falay dadka qaarkood xataa waxay dhahaan wadadan waxa loo yaqaanaa wadadii Morgan marka jidad in la falo waxaan isleeyahay ninkaas abaal looga haya sidoo kale wuxuu ahaa xukumi jiray xeradii 12aad magaaladan waxay ahayd base military magaaladan waxyaabaha cajiibka ah magaalada waxay ahayd meelaha laga difaaco xuduudda laga difaaco Soomaaliya maadaama zona militar waa meel laba dal isku haystaan tusaale ahaan laga difaaci karo marka tusaale ahaan markii Itoobiya ay soo aado xuduudan Dhuusmareeb waxay ahayd magaalada ugu weyn ee laga difaaco gobolada dhan Soomaaliya waxa ku yaal xerada 12aad xerooyin badan taangiyaala
ciidamada qalabka sidoo dhan kala nuuca magaaladan ay marka laga soo tago caasimadda muqdisho meesha laga difaaco centraalka laga difaaco oo Itoobiya dhan laga ilaaliyo xuduudaas dheer halkaan ay bal waxaa ka warantaa xarumaha ugu waaweyn amaba haddii aan si kale kugu dhigo qofka aan Dhuusamareeb weligiis imaanin ee rabo inuu ogaado buuggan uusan gaarin sidee uu qeexday Dhuusamareeb meesha kasoo bilaabatay dadka caanka ah soo maray iyada magaalooyin waxba caanka ku dhex yaalla runtii Dhuusamareeb qofkii aanan fikrad ka haysan waxaa loogu qeexi karaa magaalo multikala jaraal ah magaalo diineed magaaladan wax ku yaalla dariiqooyinka suufida ee Soomaaliya oo dadka diinta soo gaarsiiya ayaa magaaladan bees u ah jaamacatu raqay oo akademiyad weyn oo magacaasi jaamacatu raqay waxa la sheegay 80 inuu soo shaabax magaalo xadaarad diin islaam lagu barto sidoo kale waxa ku soo baxaysa magaalo dadyow kala duwan ay degan yihiin sidoo kale waxa ku soo baxaysa magaalo ku suntan aqoonta iskoolkan Galgaduud marka dad badan oo Soomaaliya meel kala duwan u tagtid qofkaas wuxuu ku leeyahay waxaan ka soo baxay dugsiga sare Galgaduud wuxuu ahaa akademiyad يعني dadka caanka ay ka soo baxaan sidoo kale magaaladani waxa ka soo jeeda dad caan ah oo ay kamid tahay Xaliima Khaliif Magool Ilaahay ha u raxmaday Xaliima Khaliif waxay ahayd boqorada codka sida Maxamed Saleymaan oo ahaa boqorka codka ay ahayd boqorada codka sidoo kale waxa ka soo jeeda magaaladan madaxweyne Cabdiqaasim wuxuu ahaa madaxweynihii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya ee carta lagu soo dhiso sidoo kale aabihii wuxuu ahaa nin caan ah oo Salaad Booy la yiraahdo oo Talyaaniga la shaqeeyay jiray ayuu ahayo deegaanadan oo dhan caanka ka ah marka taariikh muhiim ah ayaa dadkan deegaanka ah ka soo jeedo oo Soomaaliya laga wada yaqaan xabal isku deekan wax kamid ah Mustafa Ndaliira wax badan kama soo gaarin taariikhda Dhuusamareeb xogta xagee meel ugu badan ka hesho halkee xogta ugu badan laba nooc waay xog qofka aad ula dheelgareed sida hadda aan u wada hadlayno oo inta aad la fariistay la sheekaysto waqti badan geliyay xog kale oo aan qorneen oo internetka laga helo maxaa yeelay xogtu waa laba nooc xogna waa xog asaasi ah waxa la yiraahdaa primary data iyo secondary data hadda magaalada Dhuusamareeb hada istaraatiijiyadeeda qor 20 baal ka badan ma qori karto waa kugu istaagay marka waxa jira wax lagu kabo oo ah secondary data xogo magaalada laga qoray sida madaxweynayaashii soo boqdo kala ah sida maamuladii soo maray oo magaaladan ka soo taliyay qaarkoodna toos uga soo taliyeen qaarkoodna si dadban uga soo taliyeen tusaalaan ajuuraanto kala ah magaaladan si dadban uga soo taliyeen deegaanadan dhow marka tagtay ceelasha ajuuraanta ceelal lagu rahay arkaysa waa boqortooyo weyn oo laga soo bilaabo Hobyo ilaa Kismaayo diijir xogta waxaan ku helayay xog dad aan caadi ula fariistay iyo xog kale oo sugan oo meel kale laga soo qaato internet Mustafa wali aybaha ku qortay haddana aan sheegtay dhawaajid waxa kamid ah in maamuladii halkan soo maray markii soo xukumay ay marka laga hadlo sida Soomaalida qabaa'ilkii dogto ay sahayn dad deegaanka ay soo badneen intaas arintaas sidee ku yimid maxayse magaalada horumarkeeda iyo ay ku soo kordhis runtii markii la dhahayo inta badan xilliga dawladda gacanka u badnaaya dawladda gacanka waxa jiray laba gobolnatooraha gobolka iyo gobolnatooraha xisbiga waxyaabaha aniga aan bartay kamid ah inta badan qofka halkan loo soo magacaabaya inuu deegaanka dhashay ma aha waa wax xamar ama laga soo magacaabay marka saasa keenaysa in dad aan deegaankan oo deegaano fog ama Puntland ama Somaliland ama Koonfur Galbeed ama deegaano kale Soomaaliya ka yimid inay halkan marka aniga waxaan leeyahay marka qaar waa arrin wanaagsan waay in magaaladan taariikhdeeda deegaanka Soomaaliyeed markii la tago laga ogaa karo inuu qofkan leeyahay qof deegaankaas kale ayaa halkan ka yimid inta badan deegaanada Soomaaliyeed burburkii kadib la isku koobaa magaalooyinka laakiin waxay cadeynaysaa magaalo xadaarad leh oo dad kala duwan oo Soomaaliya dhan ku wada sida Muqdisho kala Muqdisho gobolnatoriyaal kala gobol ka yimid magaalada xukuumad waana wax magaalooyinka adduunka ku hormaraa wax la yiraahdo diversity in la kala duwanaado oo la kala fikir duwanaado si meesha loo kulmiyo waa gartay waxaan waraynaa Dhuusamareebta cusub hadda aan joogno 2026 ku sii dhow Dhuusamareeb maalmaha waa joogtay leey buugana ka qorto inay ku jirto filayaan Dhuusamareebta wixii ka dambeeyay aasaaska cusub ee Galmudug markii halkan soo degtay kawar maxaa ka tiraya wax badan isbedelay runtii Galmudugta cusub wixii ka dambeeyay 2018 Dhuusamareeb aad isku bedeshay aniga Dhuusamareeb markii ugu horeeyay aan imaaday waxay ahayd 2018 xilligaas magaalada aad u yareed isbitaalka gobolka ayaan imaaday Dr. Axmed Mahdi iyo Ilaahay ha u raxmaday iyo Dr. John ajoo jiray magaalo kooban oo waxa soo galay la yaqaaneen laakiin hadda waa kaafi kala deerin in la raaco weyn ah
baa markuu wax rabo wuxuu isbarbar dhigi jiray ilmaha Yurub iyo Mareykan sidii ilmaha Afrika iyo Amerika sidii loo kala koriyay marka inta la yaabo wuxuu yiri waxan waa kaafiga leeri dhuusamareebtii hore waxa fiicnaa lahayd muuqaalo badan in laga hayo dhuusamareebta maanta runtii cirka iyo dhulka inta isku jira ma dhihi karin laakiin farqi weyn ayaa u dhaxeeya magaalo hadda jidad ka socdaan magaalo dabaqyo leh magaalo nolosha soo kobcayso magaalo qurba joog iyo qaran joog iyo qorax joog labadaba laga helayo marka waa isbedel xal laha ku dhacay 5 sano ugu dambeeyay aan isleeyahay ee xilliga horena meesha nolol waa ka jirto iskoolo iyo meelo waa ka jirin laakiin hadda 5 sano ugu dambeeyay runtii magaalada isbedel weyn ku dhacay wata Mustafa magaca buuga Dhuusamareeb taariikh ka qortay xogta soo aruurisay magaca u bixisay waayay Dhuusamareeb ma isleedahay buugan waxa noqon doonaa xal ama meesha loogu soo hagaago qofka raba inuu taariikh Dhuusamareeb ogaado meel ku soo hirto runtii waa maasan tahay aniga fikradda aan ka duulo markasta waxa waaye magaalo kasta Soomaaliyeed Dhuusamareeb only ma aha magaalo kasta Soomaaliyeed inaan taariikhdooda qoro waxyaabo u taaganahay kamid tahay sidoo kale waxyaabo aan ka fikirayo wax kamid ah taariikhdan inay marjic u noqoto dadka soo socdo dad badan oo akademiga ah ayaa iga dambeyn doona waxaan rabaa inuu buugan marjic u noqdo wax badan oo aan ka tagana iyo ku soo daraan fikir ahaan marka magaaladan waxaan rabaa qof kasta oo yimaada inuu taariikhdeeda magaalo ahaan taariikhdeeda magaaladan waa ka nasiibta badan magaalooyinka Soomaaliya bartamaha Soomaaliya waa magaaladii labaad aan buuq qoon marka I think inay tahay magaalooyin kale ma jiro waana raadiyo xogtaas gaalkacyo buuq laba qor hadda ilaa hadda ma ogi inuu dhici karo waa jira laakiin ilaa hadda ma ogi beledweyne la mid magaalooyinka waaweynka ee Dhuusamareeb la mid marka Dhuusamareeb waxay nasiib u heshay buuq ayada u goori ah oo waayaheedii laga sheekeenay inay mas'alada marka kaalintaas xidma qata inay banaantahay oo wasdaqan laga sugaa soo qoro waayihii gaalkacyo waayihii laga sugaa magaalo kasta Soomaaliyeed aniga waxaan diyaar u ahay taariikhdeeda qoro maxaa yeelay taariikhihii hore dad waxay noo meeri jiray cadaan ah oo aanan dhaqankeena iyo diinteena iyo taariikhdeena si run u sheegi karin marka qof Soomaaliyeed oo oday Soomaaliyeed la fariisanaya inta u tago taariikhni saxda ka soo qoro runtii tal iyo fifaale u noqon doonta wata fariinta ugu dambeeyay buuga la xiriirtay bandhigiis runtii waxaan ugu baaqayaa fariinta ugu dambeeyay u jeedinaya waxa waaye taariikhdu waa shay cajiib ah ummad kastaba adduunyada madaxafiyo iyo meelo taariikhda waa shay cajiib ah oo la kaydiyo laakiin dadkeena waayihii adkaa ee soo mareen iyo Soomaalida oral society iska ayaa wax kasta lumiyay marka waxaan ummadda iyo mas'uuliyadda ku baraarujinaya in taariikhdu iyo dhigaal taariikheedku waa wax bulshadeena iyo taariikhda jiilka dambe uga tagina annaka waa dhimanayna laakiin kuwa naga dambeeya waxay u aayaan oo biri akhrisan karaan rabnaa marka in taariikhda iyo waxa muhiimka bulshada u ah in xil gooniya la iska saaro taasaan ku baraarujin lahaa sidoo kale fariinta shacabka caasimadda uu marinayo buugani waa buuggiinii maskaxdiinu ka yimid qof dhalinyaro oo deegaanka soo jeeda qoray inaad soo camirtiin bandhigiisa oo aad dhiirigelisiin maxaa yeelay dhiirigelintu waxa ay qaadaa in qofku wax kale ku dhiiran marka dhiirigelintu muhiim waa inaad ka soo qayb gashin oo noo camirteen wata ustaad Mustafa Sabriye aad ugu maasanta waqtiga intaas ka soo dabadooyayna wareysigii kugu saabsan adiga gaar ahaan buugga magaca caasimadda watay waayay Dhuusamareeb ee aad qortay ku maasanta waqtiga